السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا ليغا قالقة من والبوجوكتين أدبان إدين السلام يا سود دواذا وانيقو هتكوين دنيا كسود دواذا channel كيغا ساد هوري نوغو براتين cuntooyin kala duwan waxyaabo kala duwan maantay waxaan idin la wadaagayaa macmacaanka hindida maasha Allah laga faa'iideysto inaba caadi ma aha waxaad ku casuuman kartaa familkaaga ilmahaaga naftaada waxaad kale ku casuumi kartaa asxaabtaada walaalahaaga ehelada dhamaan qof waliba qof u diiday mala xiliyada macmacaanka waa la isticmaali karaa marka time rabtid inaad la qaadatid familkaaga wax yar iska fudud oo samaysan kartid waaye adiga xaajigaaga ilmahaaga maasha Allah inaba caadi maaha casriya ka dhigan kartiin xili hore subaxdii quraacda hore laga dhigan karaa ka hor wax u diidaya malahan waa gulaab jaamuun waa macmacaanka hindida maasha Allah asxaabtayda intii taqaan way taqaan inta aqoonin laga faa'iideysto kusoo dhawaada waxyaabii aan ka hagaajiyay waxaan jeclahay mar walba inaan idin la wadaago waxyaabii aan ka faa'iiday maasha Allah sidaas uu noogu soo baxay oo kalarka brownka ah biyo yar uu leeyahay biyaas waa biyo macaan waxaan idin kala jarayaa dhaxdiisa sidaas buu sponge u yahay asaga dhan soft waa dhaxdiisa waana biseel maasha Allah sidaas uu kala go'ayaa qaado waa ku cuni kartaa gacanta waa ku cuni kartaa dhaxdiisana sidaas idin tusaayo waaye asaga dhan maasha Allah laga faa'iideysto daawasho wacan waxaan ka sameeyay asxaabtayda qaaliga ah waxaan halka ku heystaa caano sidoo kale waxaan heystaa laba qaadada yar aan soo dhilaaliyay subag ah iyo qamadiga shiidan oo bacaysan waaye aan soo iibsaday iyo hal koob oo buuxo caanaha powderka ah budada ah waaye sidoo kale bakin qaadooyinkan aan hadeer heeyo waxaan ku sameysanayaa cabir way kala waaweyn yihiin measurement waaye waxaa lagu cabirtaa qiyaas ah soo hadda koobkii buuxo oo caanihii aan ku shubtay caanaha budada ah waaye caano nooc kasto aad geysatid waa isticmaali kartaa waxaan ku darsanayaa waa qamadi la shiiday oo diyaarsan kan white-ka ah waaye laba qaadaan ku shubay qaadadii aan ku cabiranayaa 3 hadana 4 aan ku daray tii 5 aan ku shubtay 6 7 8 sagaal qaada sidaas ugu darsaday sagaal qaadaan ku daray iyo halkii koob oo caanaha powderka ahaa waxaan ku darsanayaa bakin wax yar aan ku darsanaa qaadadaas kale aan ku cabiranayaa qaadooyinkaas cabirka aad ay u fiican yihiin waxyaabo badan ay ka saacidayaan way fiican tahay inuu jikadaada markasta uu yaalo laga heli karo wax badan bay idinka saacidayaan cabirkaas waxaan ku darsaday qaadada afkeeda hore oo bakin ah kamaana badin subaga waa soo dhilaaliyay subaga la soo gaysatida isticmaali kartaa aniga ka isticmaalayo waa blue pan waa isdhaxgeliyay caanihi iyo qamadigi iyo waxa isdhaxgeliyay bakintii hadeer waxaan ku darsanayaa subagii aan soo dhilaaliyay alaabtan way iska fududaa waa macmacaan heer sare ah mar hadaad baratana waxa waaye ma kala joojin doontid huba hada caano ku darsanaa si tartiib ugu darsanaa waa caano oo biyo ah waxaan ku soo qasay biyo leh ku soo qasay mid kalena buday ahayd marka caanahaas aan ku darsanayaa si tartiib ah hada qiyaasta aan ku darsanayo waa 9 qaadaas ku cabiranayaa sababtoo hadii biyo badan hal mar ku shubtid wixii waa budo way isdhaxgalaysaa caano lagu daray leh waayo biyo ka noqonaysa marka inay yara adkaato oo kuusmi kartaa la rabaa marka hadda sidaas aan ku soo qasayaa caanaha aan ku darsaday qaadada yar ku cabiray 9 qaada ku darsaday sidaas isku dhaxgelinayaa waa isku soo cajiimaysaa si fiican waxaan ku darsaday qaado kale 2 qaado taas waxaan ku haystaa 11 qaado cabirka hadda ku darsaday saas isku cajiimay si fiican isku dhaxgelinaysaa wax kale kuma daraay macmacaankan intaas bis laga sameeyaa iyo hadhow aan gadaal kaga dari rabo waxyaabaha macaanka ahaa
gulaab jaamuun allaha maasha allah. hindida aad bay u samaysataa, waa macmacaankooda aadka u fudud, meel waliba ayaga joogaan waad ka heli kartaa asagoo diyaarsan. gurigaagana waad ku samaysan kartaa, waa waxa adi hubtid oo xalaalna ku ah. sidaasaa iskugu cajiimaya, waa inaad si fiican isku dhexgelisaa. qamadiga iyo caanihii waaye, bakintii biyo kale caano oo yaro oo kusoo qasay biyo cad caadi ah le, waa wax kalba kuma darin. intaas la isdhexgelinayo subagiya ku jiro. subaga wuxuu kaa saacidaa inay is yaro qabsato xoogaho. asxaabteeda qof walba waxaa wixii markaas uu heli karo ku darsan karaa. haddii qamadigaas aniga isagoo diyaarsana supermarketka kasoo gatay, haddii adiga markaa supermarketkaaga oo kuu dhow lagu gadeynin waa hagaagsan kartaa, gurigaaga ku samaysanaysaa. muhiimad waa inuu si fiican u shiidaya oo bowdhar zaa-id uu yahay. caanaha budadana waxaa waaye qof walba jikadiisa iyo gurigiisa waa laga helaa, iyo bakin. subagana waxaa subaga heli kartida ku darsanaysaa, asna sidoo kale waaye, wax la heli karo waaye. qamadigana sidoo kale waa wax yaroo iska fudud. waxaa idin tusaayay markaan waa la kuusi karaa. soo waxaa isticmaalaya qaadadii aan ku cabiran lahaa. size kastaa rabaa inaan ku cabirto, sizekaan aan ka dhiganayaa hal qiyaas oo isla siman se iigu soo baxdo. sidaas la usoo kukuusaysaa. hadhow hadda waan ka goosanayaa, hal qiyaasaan ka wada dhiganaa ayagoo dhan. sidaasa u jaray. qiyaasta sidaasaa kusoo wadanayaa. wixii iga weynaadana waan iska jarayaa. qaadada dhexdeeda bisaan rabaa, qaadada gudaheeda inaan ku cabiro. hal cabiray kuu noqonaysaa oo saxsan. qaadooyinkan waxaa loo isticmaalaa xitaa xawaajiyaasha, sokorta, caleenta, waxa dhana loo isticmaalaa. markaa rabtid scrabka oo kale cabir inaad ka qaadatid, aad bay ku anfacayaan. wixii cabir oo dhan caadi maaha, way iska fiican tahay inaad haysatid haddii aad heli kartid. sidaasoo kusoo jarjartay, hal qiyaas le ku watay. marka haddeer inaan kuuskuusaa bilaabayaa. waan soo kuuskuusay maasha allah. muhiimadda waxaa waaye inuusan dildilaac kaa yeelan. dildilaac hadduu yeeshto wuu kaa xumaanayaa. marka muhiim waxaa ah inuusan dildilaac kaa yeelan. hadhow haddii kale saliid markaa ku duwaysid, saliidaa lagu duwaa, saliiduu kaaga dhex furmaa dildilaac hadduu yeeshto. ilan wixii waa caano, saliid hadee gaaran way isku dhalaalayaa le, wuu kaa kala furmaa. marka muhiimadda waxaa waaye dildilaac inuu yeelanin oo dhinac walba iskala siman yahay. markaas hadeer wax dilaac ma lahan. sidaasa kusoo wadayaa. intaana idinla wadaaga. markaan soo dhameeyana waa isku soo noqoneynaa. hadda inta aan jarjartay kuuskuuskooda waa idin tusaayaa. wixii ka dambeeyana waxaa waaye kuuskaas kale. markaan soo dhameeyo isku soo noqoneynaa. marow inaa waqti idinku dheereeyo. waxyar le gacanta saas le ugu qabanaysaa. waxaa iskaga totoosisanaysaa. wixii kaloo wareega yara ku kuusan waxaa waaye suu kugu soo baxo, gacanta le ku yara totoosine. wax dilaac ma laha, waa kaa. haddana kana sidaas la u sameynayaa. haddaad mar barato walaahi wax iska fudud waaye, waad ka faa-iideysiin insha allah. macmacaan yaroo fudud oo xilliga ciidii oo kale aad ka dhigan kartid oo kale. xiliyada qaar oo macmacaanka qofkuu imaado kale waad siin kartaa, waa ku casuuman kartaa. adiga naftaada, xaajiga, ilmaha, qofuu diidayo male, qof weyn qof yar intaba. maasha allah caadi maaha. markaan soo dhameeya insha allah isku soo noqoneynaa. inaa idinku sii dheereey marawi halaasan bale idin aheyd.
asxaabtayda sidii hore le kusoo waday kuuskuuska sidaanu igu soo baxay dhammaan waan soo dhameeyey saxankaa soo saartay maasha allah kuus la wada siman uu noqday oo hal qiyaas ah qaadada waxay aad kaaga saacidaysaa inuu hal qiyaas kuu noqdo hadeer waan soo dubanayaa insha allah saliid yaa dabka saartay saliidda waxaa waay dabka waa u gaabinaysaa kama badinaysid dabka waa inaad dab yar dhexdhexaad oo gaabnaan xaggiisa xiga oo aad u yar waa inaad ku dubtaa saliidda zaaid u karkartana laguma rido markay soo yaro kulaato waa iskaga ridee si tartiib ah inuu u karaa la rabaa waxa waa caano haddii kale way kaa kala furfurmaayaan meesha ku dhalaalayaan waa ku ridee ma dhaqaajinaysid waxaad suga ilaa dhinacaas guduud kasoo noqonayo haddana dhinac kale le u gadinaysaa midda kalena space waa inaad kala siisaa haddii aad isku dhaweysid waxaa waaye wuxuu kaa noqonayaa ayaga dhan wax isku furmay kaa noqonayaan marka sidaas space u kala siiyey waa soo gadgadinaa insha allah asxaabteyda markaan soo gadgadiyo maasha allah sidaan quruxda badan oo kusoo baxay aragtiin inuu zaaid kaaga gubtana ma fiicno laakiin inuu kalarkan brown ku ahaado aad buu u fiican yahay xitaa dhaqaajis badan laguma sameeyo haddii kale uu kaa kala burburaya isaga dhan burbur uu noqonaa meesha ku daadanaya maasha allah walaaleyga laga faa'iideysto sidaasaa kusoo wada dhameynaya ayagoo dhan qaybtii labaad haddana ku ritay ilaa 3 qayb oo qaybin kadibna waxaa waaye qaybtii kale biyihii dabka saaranaa macaanka biyihii macaanka dabka saartay biyaa lagu dhex ridaa hal koob oo biyaa digsiga ku shubtay halkaan koob oo biyaa waxaan ku darsanayaa isagana sokor qiyaas kale oo hal koob ah sokorta markaan ku daro waa isku soo karkarinaa markay karkaraan kadib waxaa kor kaga soo shubanaa gulaab jaamuunka kor kaga soo shubanaya iyo heel yar ku daraaya heel yar ku dara biyo way karkareen yelowgaasay noqdeen hadeer waa kusoo dhexriday marka saacada la dhigayaa ka badan kadib ay isku soo noqon doonaa insha allah maasha allah ugu dambeyn sidaan ku soo baxay hadeer waa jileec marka la dhigtid 2 saacadood ku dhawaad kasii badan buu ku awli karaa saacado badan wuu sii jilcaale kulama uu biyaha ku sii dhex jiro jileec uu sii noqonayaa oo soft ah aragtiin maasha allah sidaas buu jileec u noqday oo soft ah asaga dhan waa aragtiin sidaas waa dhaxdiisa suufka ah uu ku soo baxay yaa isdhaha caana laga sameeyay waa macmacaan fiican oo borotiin ah caano laga sameeyay halaga faa'iideysto saaidintu meesha idinku saaraya ilmaha loogu faa'iideeyo xaajiga loogu faa'iideeyo naftii loogu faa'iideysta asxaabta iyo helka dhamaan lagu cazuuma aniga idin dhaminayo testigiisa caadi maaha maasha allah waxa idin tusaaya siduu saft u yahay dhaxdiisana u bisil yahay qamadi yaraan ku daray Soomaa inuu biseel noqdo waa muhiim marka asxaabteyda iyo walaalahayga dhamaan laga faa'iideysto meel walbo joogtiin waa macmacaan aan caadi ahayn insha allah laga faa'iideysto channelkana subscribe saara comment sameeya insha allah si share gareeya